wixii maanta jira magana sheegaya muusow masweyn baa tahay waad namirataa mas'uulnimadu waa turtay oo waad masaxan tahay meeraysi xaalkaagu luqay muuse kaliga markii aad miciin naga rabtaad madaxa taagaysay muusow markii aad lahayd meel kumaad qoran malyan iyo malaayiin qof oo wada masaakiina oo adiga madax ka dhigtay muruga haysaa maaleeyo geedka ku taal magana ii muuqda ninka yiri anaa muusan oo maan dhawaan jirin odaygii ku maamuusay baan meel banoodayn isaguba muraad buu lahaa lama samoodayne mar haddaanad maamuli karayn mariya ceeb maaha madaxweyne musuqmaasuqda muuse waa kow macnahaaga waan wada ognahay miraya laabtaada xusbiyadu hadday diidayiin kuma shikaad keentay ma inaad masruuftaad rabtaa meesha kuu joogo hadhowtana markaad jecesha hun mariyo xeerkaaga macna laawa meeraysi wada keligii meelayste mar haddaanad magaca u turayn maamulkana tuur ha isku murugta waa midhkaad rabtay maatadan allah ama dee macnay leedihiyo maare gooniyahe nabaddaa miduun baana heli maare noo hele waa haddaanad maal iyo ka rabin iyo mulkiyado waa haddaanad magac weyn ka rabin oo masiibaa maadsadaydan muusoo dhadhami way macaan tahay ha ku miiganee hoo biyaha waad marganaysaaye marna wada liq muusow miciinka ama fulanayni walaal amiir siisi shiro official waxa doonayna su'aal ku weydiiyo magaca ku bilaabay walaal magacaygu mawliidow saad u aragtaa samafalay Cabdimaalig Muuse Coldan xarigiis walaal Cabdimaalig Muuse Coldan xarigiis oo lagu saxay odagu deedhood bajeel koor ciyaarayo dabeetana jeelkii koor ciyaarkiisu ma la fogaaday mooyaane markaan waxaan leenahay dee in lagu xidho waan ku saxsanaa markaa waa taageersan tahay in la xidho aad baad u mahadsantahay ku soo dhaw amiir siisi shiro official waxaan doonayna su'aal ku weydiiyo waan ka jawaabaya walaal saad u aragtaa samafalay Cabdimaalig Muuse Coldan xarigiis walaal waan ka xunay Cabdimaalig Muuse Coldan la xidho waayo muwaadin reer Soomaaliland u ahaa muwaadin tan u dhashay oo inta qof wax taro ayaa walaal ka weyn shakhsiyadiisa xiritaankiisa in la xidho la cadiyeeyo jeel lagu rido oo marna la dhahay Itoobiya loo dhaadhicinaya marna waxa la inagu cagajuleynaya horta waan ka xunnahay haddii madaxweynuhu yiri Itoobiya aan qaadanayna ta ka dhacdo Burco iyo gobolada Soomaaliland dhagaa faraal gelinaya waayo dadka ka soo horjeeda xiritaanka